بسم الله الرحمن الرحيم. horey waxaan uga hadalnay la dagaalanka dib u dhaca iyo burburka haysta bulshada si shakhsi ah iyo si maaragtay bulsho. Muuqaalkan isaga waxaan uga hadlaynaa sida wax loo bilaabi lahaa. Awgay Xaaji Saciid Dayib Allah u naxariistay waxa uu yiri hal hays noloshayda u ah budhig. Hal hayskaas wuxuu yahay maandhow in wax la bilaabo dooro. Haddaba anagu oo hal hayska wax ku dhisayna waxaan la hadlayaa waxa weeye dhalinyarada gaar ahaan dhalinyarada wax baratay isla hebel wax dhaqaajiya. maandhow waxaan magaalada Boosaaso isugu nimid saaxiibkay ahna classmate-kaygii oo aan iskoolka sare wada dhigin jirnay oo ka yimid dalka Mareykanka. waa sheekaysan wuxuu iga sheekeeyay sheeko aad cajiib u ah. sheekada waxay ahayd wuxuu yiri waxaan la kulmay oday Mareykan ah oo Afrika iyo ka soo shaqeeyay oo meelo badan soo maray. ninka isaga wuxuu yiri waxaan hubaa yiri Soomaalida waliba generation-kiina aniga iyo dadka nalamadka ah inaysan gaarin, laakiin Soomaaliya waxay noqonaysaa dal hodan ah. ninka isaga wax badan buu og yahay waxba ima faahfaahin buu yiri. casriga adduunka maanta meesha uu maray marka aad fiirisid in dal hormaro wax badan ayaa fududaynaya. tusaale ahaan oo kale dalka Turkiga oo ah awoodaha hadda maanta adduunka ugu xawaaraha sare xagga koritaanka waxa uu ka mid ahaa 95tii ama 25 sano ka hor wadamada adduunka ugu dambeeyay dhaqaalaha 180 meelahaas ayuu ku jiray. maantana waa 10ka dhaqaale adduunka ugu sareeya awoodda sidoo kale meel walba ku jira. casriga maanta teknolojiyadda la joogo wax badan ayay fududaysay. wax badan waqti badan qaadan jiray oo ummada ay ku hormari jireen ayay fududaysay. taan macnaheedu ma aha maadaama ninkii odaga aan ka sheekeynay uu yiri waxa weeye Soomaalidu generation-kiina horumarkaas ka qayb gaarinaya ma arkayo. macnaheedu ma ana isleeyahay walba ordo aan maaragtay horumarka gaarno maaha, laakiin waxaan leeyahay wax badan baa la dhaqaajin karaa. adduunka maanta waxaa lagu kala hago waxa weeye waa teknolojiyadda iyada ah wax badan oo waqti badan qaadan jiray ayay fududaysay. waxa ugu horeeya muuqaalkan hadeer aan maaragtay duubayo waxaa laga yaabaa 5 sano ka hor 10 sano ka hor kaamiro qof inuu duubo waliba gurigiisa ka soo duubo waxay ahayd wax aad u adag. maanta laakiin qof walba waxa haysta mobile smart oo internet ku xiran wuxuuna awood u leeyahay fariintiisa in uu adduunkooda gaarsiiyo. maxaa sahlay waxa weeye waa teknolojiyad. marka haddii aan dib ugu noqdo sidee wax u bilaabi karnaa waxaan isleeyahay qodobka koowaad waxa weeye horta waa waxbarasho. si kasta oo waxbarashada dalka ay tayadeeda u hooseyso misana wax badan ay dhaantaa jahliga. casriga maanta la joogana qofkii waxbarashadiisa ku kooba kalaas uu fariisto waxba baranayo sababtoo ah cilmiga maanta waxa uu ku socdo xawaare aad u sareeya. waxa la yiraahdaa 100 sano ka hor cilmiga adduunka yaalay 50 sano kadib ayuu maxalli jiray laba jibaaramay. haddana wuxuu marayaa la yiraahdaa 18 kasta oo saacadood cilmiga adduunka yaalay laba jibaar ayuu noqdaa. aragtiyaha qaybtooda waxay sheegayaan in 4 bilood maaragtay 4 bilood oo kasta cilmiga adduunka yaalay oo laba jibaarmay. haddaba casriga noocaana qofka raba inuu la jaan qaado waxa u baahan yahay in uu waxbarashada 24 saac waxbarasho ku jiro. qofku inuu waxbarasho manhajiye barto oo fildi galo oo takhasus doorto iyadana mowduuc gaar ah video baa uga hadlay. videogaas waxaa soo gelinay suggestiga. video gaar ah uga hadlay videogaasna waxaan soo gelinay suggestiga. ahamshi waxa waa qofka marka in uu barto waxbarashada ku tago si fiican wax u diraasayo oo fildi bulshada uga aad u yeesho. waa qodobka koowaad. qodobka labaad waxbarashada waxa asaas u ah waa isla waxbarashada baynu ku jirnaa. qodobka labaad iyada ay ah waa in wax la akhriyo.
ummadda Soomaaliyeed waxa la yiraahdo oo la qaadsiyo waxa ma akhriyaan waxa akhrinaa laakiin maxaanu akhrinaa casriga maanta aan joogno dadku waxay wada isticmaalaan baraha bulshada waxaan nahay ummadaha u aktifsan maaragtay baraha bulshada marka la awal oo aan dad qoraal iska ahayno hadalkaas u saaran misana wixii waxaan u helnay platforms hadda waqtigan la joogo waxa soo baxay platform la yiraahdo Clubhouse anigu wali ma isticmaalin laakiin waxa aan dareemayaa si aanan caadiin loogu jabay wadooda iyo mawaadiic discussion maaragtay waaweyn laga sameeyay heer madaxda maamulada iyo kuwii federaalkaba ay sameysteen platformyo ay kula hadlaan shacabka marka casrigan la joogo waxa loo baahan yahay qofku in uu xusho muxuu akhrinayaa waxyaabaha khatarta qofku dadku ku ah waxa kamid ah in ay moodaan baraha bulshada wax laga akhriyo salahan oo kale hadii aad ku xiran tahay ama asxaabtada Facebook jiraan ama Twitter iyo xirmidka ah dad akhyaaro maqaalo fiican soo qora hadii ka soo qaad maanta akhriis maqaalka ugu fiicnaa waxa ka kharibaya boostiga xiga oo laga yaabo inuu noqdo mid siyaasad ah ama mid cay ah ama mid maaragtay personaliska ah ama qof dhibaataysan ama qof labisan ama qof saaxiibka ah wax ku soo siyaadeen ama wax ka naaqusmeen kadibna ay fikirkii iyo aqoontii wixii akhrisay ayba maaragtay khaanad kala gasho oo hawshan cusub ama boostiga xiga uu hawada ka saaro marka waxa muhiim ah qofku in uu wax akhriyo waxyaabaha akhriska qofka la rabo inuu akhriyo waxa kamid ah marka waxay dhahan 50% waxa akhrinaysa boqolkiiba 50 waa inay noqdaan fiildiga aad u baratay jaamacadda ka baratay takhasuskaaga ah waa inaad akhrisaa oo aad tahay nin fiildiga u bartay wax badan ka og 50 kalena waxa la dhahaa waxyaabo kala duwan akhri ganacsiga wax ka akhri teknolojiyada wax ka akhri siyaasadda wax ka akhri cilmiga ijtimaaciga wax ka akhri diinta wax ka akhri waxa la rabaa inuu akhriska dhanka kala balaacan yahay ma aha inaad perfect tahay oo maalmo intaas buug akhrisay laakiin waa in at least ay ku socotaa maaragtay qorshaha ku jirta nolol maalmeedka ku jira wax akhris hatta dhalinyarada daawan doonta muuqaalkan waxa la rabaa in kulli wada shukansada sheekaysta in qofka lamaanaha la sheekaysanaysid su'aalaha shukaansiga lagu soo diro abow ama baay buuga akhrinaysa buuga la isku hadiyeeyo wax la akhriyo wax aad macaan oo wanaagsan akhriskuna waa dahab sababtoo qof laga yaabaa 20 30 40 sano khibradiisa aqoontiisa iyo aragnimadiisa inuu 200 page kugu soo hadiyeeyo mar walba waxa kugu socon lahaa xog BBC ba iska dhageysan lahayd Facebook ba iska daawan lahayd waxa maskaxdaada gali lahaa u badan wax maaragtay wax u badan khuraafaad oo aadan dooran oo aadan u baahnayn marka intii waxa ay kugu socon lahaayeen kaliya bal wax qof maaragtay uu ku soo dadaalay dhowr waraaqood ama dhowr boqol waraaqood kugu soo koobay si gobonimo leh ugu doon oo akhri oo wax akhri hadii kale waxa dhaxaysa in qof wax soo akhriyay oo marka waad ku akhriyo kadibna wax kugu akhriyo okay qodobka saddexaad waxa waaye in aad tahay qof adduunka la socda adduunka inaad la socotid qaab kala duwan oo la socotid inaad la socotid siyaasadda la socotid ganacsiga inaad la socotid waxa cusub ee teknolojiyada inaad la socotid inaad ku xiran tahay majallaadka iyo maqaalada iyo warbixinaha adduunka muxtaramka ah inaad maaragtay ku xiran tahay oo aadan ku xiran dadka khuraafaadka iyo macnaada iyo waxyaabaha aan wax badan ku kordhinayn sababtoo ah waxyaabaha aad la soconaysid waxa ay kugu dhalinayaan xisaabtan hadii aad aragtid wax ummadaada aan deegaankaaga iyo dalkaaga khatar ku ah adduunka ka socda mu'aamarado qorshayaal hawlo waxa sameynaysaa qaabka aad liisa naftaada la baxsan lahayd hadii kale qaabka adiguna dadkaaga iyo ummadaada aad u horumarin lahayd baad wax ka akhrinaysaa buugaag baa ka qoraysaa waxba sameynaysaa marka qofku waxa loo baahan yahay asaas u ah in uu leeyahay maaragtay qaab uu adduunka oo la socdo baraha bulshadana uusan isku dhiibin sababtoo ah baraha bulshada waxa laga yaabaa dad kooban baa saaxiibadaaya su'aalahan oo kale Facebook wada isticmaashin 5,000 qof ku jirta 5,000 oo qof inta qof wax soo qorta xisaabi 100 qof kama badanayaan 4,900
waxa weeye waa messenger isaga jiraan online bascation boqolka qof inteeba wax cilmiga soo qorta inteeba xog soo qorta kulligood waxa ka buuxa qof isaga isxaysiinaysa warida soo dhigaya qof siyaasaddu qolo haysta mid qabiil looga hadlay taxsi kaliya soo dhiga waa fahmayna marka waxa loo baahan yahay in qofku uu la socdo warbixinada adduunka ka socda kalena socdo warbixinada muxtaramka ah ee aqoontooda maaragtay qaabka wararka u diyaariyaan ay kuwa tayo sareeya waxyaabaha kale oo muhiimka ah qodobka afraad waxa waaye waxyaabaha muhiimka ah qofkii in uu wax abuuro waa iska imaanaysa haddii aad sida u soo dhaqantid haddii aad wax baratid markoobaad oo aad wax akhrisid oo aad dunida la socotid qodobka afraad wuu ku xiran yahay inaad wax abuurtid sababtoo ah waxa ka buuxa waxa rabtaa inaad u bedeshid wax soo saar oo wax soo saarkaas uu noqdo mid naftaada iyo ummadaada anfaca marka waxa muhiim ah qofku in uu wax soo saaro hal abuur la yimaado fikir la yimaado barnaamij sameeyo aragti sameeyo waxa ugu muhiimsan ee qofku sameeyana waxa weeye fildi uu isagu bartay ee uu ku fiican yahay in uu wax ka sameeyo haddii caafimaad baratay institution caafimaad fur isbitaal fur haddana fur kana farmashi fur haddii kale maaragtay farmashi online fur hataa dukumeenti online baa la maraya marka waxaa la rabaa in uu qofkii wax abuuro oo hal abuur la yimaado hal abuurka inagu inaan ka qaadano maaha wax weyn oo balaayo ah laakiin haddii aad tartiib waxa awoodaada ugu yar haddii aad ku bilowdid ilaahoomi aad xataa haddii aadan hayn dhaqaale oo aad tusaale ahaan oo kale caafimaadka baratay waxa weeye lacag yar soo qaado farmashi tag waxa ka soo qaadataa xogaa daawo ah ama ka soo daymo waxaad tiraahdaa xogaaga ideymiya ma fahant markaa kadibna tartiibtaa ku bilow 3 sano 4 sano 5 sano muddo kadib waxa weeye wax macno leh baa samaynaysaa oo maaragtay hirgala mar walba waxaa la rabaa wixii aad joogtid iyo meesha aad joogtid inaad ku bilowdid okay waa inaad samaysaa waa inaad noqotaa qof si local u shaqeeya tusaale ahaan oo kale aniga hadda Boosaasan joogaa Puntland baan joogaa state ahaan Soomaaliya marka laga hadlo marka aan shaqeynayo waa inaan noqdaa qof local ah oo reer Puntland oo arrimaha Puntland ka shaqeeya deegaanka ka shaqeeya micnaheedu ma aha in aan khaladka Puntland nidaamka jira ama maamulka jira khalad ku taageeriyo laakiin wixii Puntland ka socda inaan ku burqalayska qabto magaaladayda Boosaasan joogaa magaaladaas aan wax ka qabto laakiin inaan noqon local sababtoo ah local markaa noqotid oo aad aqliyadaada iyo magaalada aad joogtid kay adduunka ku noqdo garashadaada intaas ay leekaanaysaa waxa laga yaabaa inaad qabiil noqotid inaad noqoto maaragtay qof garasho gaaban caadifiya maaragtay laga yaabo aragtidaas ku keento dad deegaano kale iyo walaalaha kale iyo adduunka kale horumarka maaragtay aan fursado u imaan lahaa inaad caqabad ku noqotid marka waxa loo baahan yahay qofkii inuu si loo kala u shaqeeyo meesha uu joogo uu ka shaqeeyo si fiican uga shaqeeyo laakiin aragtidiisu ay intaa ka dheeraato uu han ummadeed leeyahay dadka isu keeno si aragti fog u hadlo laakiin marnaba uusan caqliga ka noqon local shaqadaadu local ha ahaato laakiin caqligaadu caqli qaran ha ahaado okay waxyaabaha aan qabanayno waa soo sharaxnay qaybtan waxaan kaga hadlaynaa waxa waaye aan ku soo gunaanadayna waxyaabaha ay tahay inaan ka shaqeyn ama ku shaqeyn waxa ugu horeeya weligaa ka shaqeyn lacag ha u shaqeyn ujeedkaagu lacag hadduu noqdo waxaa dhacaysa in meel walba oo aad lacag maaragtay ku aragtid inaad raaxaysatid fahmaysaa lacagtu waa means waa tool nolosha fududeeya laakiin maaha ujeedo qofku markasta uu han leeyahay ujeedo leeyahay lacagta uma ordo lacag kasta xataa hadday soo gasho isagaa lacagta isticmaala laakiin qofku markuu han yar yahay oo qof daciif yahay qof hamaan gaaban yahay wax walba maaragtay lacagta awgeed buu wax walba maaragtay u sameynaya waxa laga yaabaa qaraabadiisa inuu gooyo inuu barnaamijyo aan fiicnayn ka shaqeeyo inuu dib u dhac ka shaqeeyo product xun wadanka keeno ama daawo xun keeno ama waxyaabo maala yacni ummadda
mustaqbalkeeda iyo horumarkeeda aan ka shaqaynayn bale dib u dhac u noqonaya inuu maaragtay lacag ka raadiyo. marka waxaa ka mid ah waxaan maaragtay mamnuuc ah oo qof walba wax isku falaya oo raba inuu bulshadiisa iyo ummadiisa wax ku biiriyo in uu iska ilaaliyo lacagta raqiiska ah. waxaana ku garanaysaa lacagta raqiiska marka koowaad ujeed ka fog ma laha oo lacag aan helo baad noqonaysaa. labo waxaa raadinaysaa xataa sometimes waxaa laga yaabaa inaad ka shaqaysid bulshadaada wax lagu gumaynayo lagu baabi'inayo fikirkeeda iyo mustaqbalkeeda iyo garashadeeda in aad ka shaqaysid. iyadana waxaa loo baahan yahay qofka inuu ka feejignaado waxa aad qaadanaysid. fiiri erey dambeedka dambe xaggee bay keenaysaa waxa shaqada aad qabanaysid naftaada iyo bulshadaada meel fiican ku furaysaa. waa inaad hubisaa. waa very important qodobka labaad waxaa waaye ha ka shaqeyn qabyaalad. qodobka waa very important. laba wax baa isku khaldaa. qabyaalad waxaa weeye qofku in uu xumaan uga shaqeeyo qabiilka, in dad la isku diro, in qof xun oo aan tayo lahayn qabiil lagu taageero, qof fiican oo tayo lehna qabiil dartii loogu soo horjeesto. waa wax khaldan. qofku waa wax wanaagsan inuu ehelkiisa iyo qoyskiisa iyo xataa familigiisa ama qabiilkiisa uu horumarkooda waxbarashadooda dadka danyarta oo wax la taro familigaas ka shaqeeyo wax aad u wanaagsan waana localkii aan hore uga soo hadalnay. laakiin uusan caqligiisa iyo garashadiisa aysan noqon mid qabiilku dhisan. waayo qabiilku siduu u socdo marka dambe adiga iyo walaalkaaga kala tagaya. qofka bini'aadamka meel walba uu joogo waa anaaniyaduna waa khatar, waa daaqad xun. qofkii isku fura heer ma gaaro. shaydaan wuxuu macsida ugu weynaa ee uu ka bilaabo waxa waaye nabi aadan anaa ka khayr badan. marka qofku in uu raba inuu ummadiisa iyo deegaankiisa bulshadiisa wax taro waa inuusan marna qabiili noqon. meel ay kaa soo gashaa qabiili male, qabiilkaaga meel ugu geynay male. weydii dadka maaragtay qabiilada isu qaba inay dadka wax dheer yihiin, dadkooda aan waxba baran ee waxba qabsan, weydii bal qabiilkooda meesha u geeyay. sideeda banaana waxaa iraahdaa anigu qabiilkayga intaan ku faani lahaa qabiilkaygu asaga ha igu faano aniga. macnaheedu waxa weeye adigu markaa macno isu yeeshid dadka qabiilkaaga waxay ku leeyihiin ninkaas waa annaga, laakiin markaa qashin tahay anigu reer hebel baa ahay baa leedahay. sababtoo ah qiimo ma lihid adigu, qiimo ma lihid. marka qiimo waxaa ka raadinaysaa qabiilkaaga ragga magac u yeelay ilaa ragga adigu kula mid ay ahaayeen inaad isku xuquuqdid adigu maxaa tahay. ninkii agabiya iyo carabkaa wuxuu yidhi laysa alfataa man yaquulu kaana abi walaakin alfataa man yaquulu haa ana daa. yaa soomaaliduna waxay tidhaahdaa waxa way aabahay door lahaan jiray miya wax saas kala bay ahayd. yaa aabahay geel lahaan jiray anaa door lahaa dhaanta. marka waxa loo baahan qofku inuu asagu waxa ahaado uusan ku shaqayn qabyaalad. waxyaabaha kale oo khaldan waxaa ka mid ah ama aan wanaagsan qofku inuu ka shaqeeyo waxyaabo yar yar. inuu han yaraado waa wax aad u foolxun. qofku haddii uu si shimbirta u noolaado uu yoomka raadiyo ummad waxa ma tari karo, naftiisana meel fog ma geyn karo. qofku waxaa loo baahan yahay inuu lahaado han fog, inuu isweydiiyo 5 sano kadib, 10 sano kadib, 20 sano kadib, 50 sano kadib inta cumriga ka dhiman maxaan qaban karaa. at least waa inuu haystaa sawir maaragtay maskaxda sawir ku haystaa inuu dhaho at least anigu waxaan ahay qof dhaqtara fildigaas aan bulshadeeda uga aaday, may anigu engineer baa deegaankay guryaha noocaas aan ka dhisaya, jidadka noocaas aan ka sameynaya, aniga technologist ahay, teknolojiyada heerka leeg ma sameynaya, waxbarasho inta leeg maaragtay waxbarashada nidaamka teknolojiga dhex gelinaya iyo xilaamadka. qofku inuu marka uusan marnaba noqon qof maanyar waa very important. uu aragtiisa ballaarnaato. qodobka aan ku soo xirayo waxa waaye qofku waa inuu noqdo qof caalami ah, adduunka la socda, uu fahansan yahay adduunka sida u shaqeeyo, awoodaha dunida ka talaysa u shaqeeyaan, nidaamka adduunka ka jira si uu wax u xukumo, sida loo kala adag yahay in uu si fiican ula socdaa la rabaa. qofka noocaas ah wuxuu awood u yeelanayaa
markuu adduunka si fiican meel kore ka arko oo aqoon ku arko oo cilmi ku arko oo shaqo ku arko oo dadaal ku arko wuxuu awood u yeelanayaa inuu noqdo qof caalami ah markaa kadibna uu awoodiisaas uu u bedelo wax soo saar kaasoo anfacaya naftiisa ehelkiisa iyo bulshadiisa farinta iyada ah maantay intaasaan kusoo koobaya ciwaankeeduna ahaa xaggee wax ka bilownaa waxaan rajaynayaa qodobadii aan soo sheegay inay noqdaan qodobo maaragtay kugu dhaliya maaragtay inaad wax ku kala cadaadaan aniga iskula hadlayay adigana oo ka maqashiinay tani kulantideena dambe sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh